Ma dareentaa farxad siyaado ah mar kasta oo aad isticmaalaysid taleefankaaga oo aad ku jirtid Facebook, TikTok iyo dhammaan baraha bulshada oo aan magacooda wada naqaano? Haddana isla sidaas oo kale ma dareentaa caajis aadan ogeyn meel uu kaaga imaaday marka aad isdhahdo shaqo ay dantaada ku jirto qabso? Sidoo kale marka aad isdhahdo wax akhriso oo aad buugaag soo qabsato, daqiiqad kadib ma hurdootaa? Haddii aad soo furto fridge-ka ku yaala guriga oo ay indhaha u qabtaan xabad shukulaato ah iyo xabad karoota ah, isla markii waxaad ku boodaysaa shukulaatada. Sababtu maxay tahay? Dhammaan maxay baraha bulshada marka aad gasho maxaad ugu dhex milantaa oo aad waqtigaaga oo dhan ugu lumisaa? Haddaba haddii aad dareemaysid dhammaan waxyaabahaas aan soo sheegnay oo idil, halka aniga ayaa ku haya insha Allah ee muuqaalkan dhammayso. Soo dhawaada, magacaygu waa Yacquub Xasan. Dopamine waa dheecaan jirkeena laga helo. Badanaa dadku waxay aaminsan yihiin in keliya laga helo oo laga soo daayo maskaxda, laakiin waxaa kaloo laga soo daayaa xubno kale oo jirkaaga ka mid ah, waxaana ka mid ah kelyahaaga, mindhiciradaada. Jirku waxay u qaabilsan yihiin waxyaabo badan, laakiin haddii aan ka soo qaadano laba ka mid ah, waxayna kala yihiin dareenka abaalmarinta iyo dhiirigelinta. Mar kasta oo aad qabato shaqooyin ku farxad geliya, sida inaad Facebook muuqaalo ka daawato, jirkaaga wuxuu soo deynayaa dopamine. Taas cagsigeeda, marka aad ka fogaato qabashada shaqooyinkii ku farxad gelin jiray, dopamine-ka jirkaaga kama dhammaado. Taas oo ay micnaheedu tahay haddii aad ka soonto shaqooyinkii ku farxad gelin jiray, hoos uma dhigayso tiradii laga rabay dheecaanka dopamine-ka. Haddaba sidee ayuu u shaqeeyaa dopamine-ka? Jirkeenna marka la eego dhinaca horumarka bani'aadamka uu sameeyey, maskaxdaada waxay kugu abaalgudaysaa wax kasta oo kordhinaya farxadaada, ayadoo sii deynaysa dopamine. Taasi waa sababta aad ugu faraxdo marka lagu soo hordhigo hilib saxan ku jira oo caraf badan, oo maskaxdeennu waxay u malaynaysaa in la cuno hilibkan horteeda yaallo lagu dareemi doono dhereg waqti dheer ah. Haddii aan tusaale soo qaadano, waxaa lagu horkeenay fridge ay ku jiraan hal xabo oo shukulaato ah iyo hal xabo oo karooto ah. Isla markii waxaad ku boodaysaa shukulaatada, sababtoo ah maskaxdaada waxay kuu sheegaysaa in farxad lagu helo cunista shukulaatada. Haddaba waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso oo aad isdhahayso in la cuno xabad shukulaato ah ma ahan wax xun. Taas waa run, laakiin isla marka ay maskaxdeena soo dayso dopamine badan, waxay isku dayaysaa inay kiciso rabitaanka shaygaas marar badan ilaa aad ka yeelato rabitaan xooggan. Waa halkaas meesha ay kaa soo raacayso inuu balwad kuu noqdo shayga aad joogtaysay. Haddaba haddii aan sii bayaanino, dopamine-ka ma yaqaano waxa caafimaadkeena u fiican iyo waxa inoo xun. Dopamine-ka ma yaqaano in la cuno xabad shukulaato ah maalin kasta ay caafimaadkeena u daran tahay. Sidaas daraaddeed, qofka shay aad ula qabsaday, asiga ayaa noloshiisa u oggolaaday in farxad uu ka raadiyo shay caafimaadkiisa dhaawac ku ah ama dhaawac u geysanaya. Xaqiiqada argagaxa leh ayaa waxay tahay in dhammaan shirkadaha baraha bulshada ay ka faa'iidaystaan nidaamkan abaalmarinta ah ee qotada dheer. Waxaa jiro malaayiin khubaro ah oo shirkadaha casriga u xilsaaran inay soo jiitaan attention-kaaga si jirkaaga loogu soo daayo dopamine badan, si ay inoogu dhigaan dad ku soo noqnoqda marar badan barahooda bulshada. Taasi waa sababta ay ciyaaraha geemiska ay u kala leeyihiin heerar kala duwan, si lagugu xukumo inaad ku soo noqnoqoto ciyaarista geemkaas. Qabsashadaas la qabsaday maskaxdeenna waxay fududaysay inaanan u fiirsan waxa dhibka inoo ah, sida baraha bulshada, muuqaalada xunxun iyo dhammaan wax kasta oo daroogo noqon kara. Taa ee noogama baahno wax dadaal ah inaan samayno ficiladaas. Waa wax adag inaad rumaysato, laakiin waxaan ku noolnahay adduun loogu talagalay in laga ganacsado shucuurteenna. Baaritaanno cilmiyeysan ayaa waxay caddeeyeen in dopamine-ka ay saameyn ku leedahay go'aanada aan samayno iyo ficilada aan qaadno. Taasi waa sababta ugu dambeyntii dopamine-ka ay u maamusho nolosheenna maalin kasta. Wax kasta oo aad isticmaasho, ha ahaado gaarigaaga, kombiyuutarkaaga, taleefankaaga, waxay leeyihiin nidaam dib u habeyn oo haddii ay xumaadaan dib u dayactir loogu sameeyo. Ma filayo inuu jiro annaga ka bani'aadam ahaan inaan nidaam noocaas oo kale leenahay, balse shaygaas oo aan maanta ka hadlayno wuxuu inoo sahlaa inaan jirkeenna iyo maskaxdeena dib u habeyn ku sameyno. Waxyar istaag. Haddii aan ku weydiiyo, goorma ayaa kugu dambeysay maalin aad si dabiici ah u noolaad? Waxaan ka wadaa maalin aadan isticmaalin kombiyuutar, taleefan, xitaa gaari, oo aad u lugaysay meelaha aad ka maarmi kartay inaad gaari u raacdo. Goorma kugu dambeysay? Isbuuc ka hor, bil ka hor, sanad ka hor? Jawaabta qaybta faallada inoogu reeb. Noloshaada haddii ay qaabkaas aan soo sheegnay
xirnay u samaysan tahay dabcan waxaad ku jirtaa khatar aad u weyn. fadlan noloshaada dib u habee, waxa noloshaada waxtarka u leh samee oo mar walba ka faa'iidayso waqtigaaga. dopamine fastingku waa shayga noloshaada qaab caadi ah kusoo celinayo, sababtoo ah waxaad noloshaada ka bedelaysaa waxyaabaha ku dhibayo oo aan micnaha kuu lahayn. micnaha kelmadda dopamine fastingka haddaan soo dhoweyno, tusaale ahaan soonka aan soonno oo kale oo Allah subxaanahu watacaala nagu waajibiyey, waxaa la rabaa qofka inuu ka soomo cuntada, biyaha iyo wax walba oo jebinaya soonkiisa. waxaa la mid ah soonka dopaminka oo sidee ah, haddii uu qofku rabo inuu ka soomo dopaminka, wuxuu ku talagelayaa wixii uu noloshiisa maareyn waayey inuu ku maareeyo. tusaale, qof baa noloshiisa waxaa la degay baraha bulshada 24 saac ayuu daawadaa, wax micno ah kuma soo siyaadiso. qofkaas waxaa laga rabaa marka uu samaynayo dopamine fastingka inuu waqti xadidan maalintii isticmaalin taleefankiisa. tusaale, waqtiga uu soo kaco ilaa galabkii, ilaa uu kasoo dhammaysanayo shaqooyinkiisa caadiga ah, oo haddii uu yahay arday uu ka imaanayo goobtiisa waxbarashada, haddii uu yahay qof shaqeeya, waqtigiisa inta ugu badan inuu geliyo wax ku saabsan shaqadiisa. waxaa jiro 6 shay oo ay dadku badanaa ku noqdaan addicted ama ay ku dhegaan. kow, waxa uu yahay cuntada aad ku dareemayso raaxo sida shukulaatada oo kale. waxaa loo baahan yahay inaad iska yareyso cunista shukulaatada ama xitaa jalaatada, sababtoo ah waxaad ku noqonaysaa qof ku dhegay. Nambar 2, internetka iyo geemiska la dheelo. halkan waa cilada ugu badan meesha ay naga haysato, sababtoo ah maanta haddii aan mikrofon qaato aan laamiga dhex istaago, dadkana aan weydiiyo waa maxay wax ugu badan ee aad waqtigaa ku qaadato, 90% dadku waxay kaaga jawaabayaan waa taleefankayga. halkaas waxaad ka dareemaysaa in taleefanka dhibka ugu badan uu nagu hayo. maxay naga dhibi lahayd qofka haddii uu taleefankiisa u isticmaalo qaab faa'iido leh? waxa ugu badan oo aan sameyno waa inaan kor iyo hoos u wadno Facebook iyo TikTok. geemiskana waa wax ay ku imtixaanan yihiin dhalinyarada. haddii aad muuqaalkan daawanayso aadna ka mid tahay dhalinyarada geemiska dheela, meesha aad geemka ka dheeli lahayd wax biri ku anfacayo qabso oo waqtigaaga ku qaado. Nambar 3, sidoo kale waxaa ka mid ah khamaarka. halkan waxaan baraarujinayaa haddii aad ka mid tahay dhalinyarada ciyaarto khamaarka taleefanka lagu isticmaalo oo aan filayo inaad fahmaysid waxa aan ka wadno, fadlan ka joog. kuma fiicna kharashkaaga iyo sharaftaada midna uma wanaagsana. Nambar 4, soo dukaamaysiga micno darrada ah. dad waxaa jiro noloshooduba ay ku tiirsan tahay haddii ay suuqa aadaan inay wax uun iska soo gataan oo aanan joogi karin oo aan ka adkaan karin rabitaankooda. sidoo kale daawashada aflaamta xunxun. dad badan oo waxaa jira oo dhalinyaro u badan noloshoodu ay rogantay oo mugdi ku jira oo ka dhaqaaqi la daawashada aflaamta xunxun. Nambar 6, sidoo kale raadinta xamaasad. dad baa waxay raaxo ka raadiyaan meelaha fogfog inay iska soo tuuraan, sida skydiving waxa loo yaqaano oo kale, oo si ay u dareemaan farxad. haddii aad dadkaas ka mid tahay ka joog fadlan. Nambar 7, daroogada. dadka ku dhiban ayagana waa la mid. Allah xanuun badanaa marka aad aragto dhalinyaro yaryar, wiilal iyo gabdho leh oo noloshooda inta badan ku qaato bal inay yara helaan farxad yar oo ku meel gaar ah. haddii aan soo koobno, ka fogow oo iska yareey isticmaalka wixii aan dan adduunyo iyo mid aakhiro kuugu jirin. una soo jeeso waxa ku anfacaya oo ku dadaal maalintaada iyo habeenkaaga inaad ku camirto waxa ku anfacayo. daawade, haddii aan su'aal ku weydiiyo, noloshaada ma u maamushaa sida aad adigu rabto, mise waxaa ku hogaamiyo naftaada iyo baraha bulshada? jawaabta qaybta commentiga inoogu reeb.